xaaladii imika xaaladii hore iska mid maaha darigi hore hooyooyinku guriga iskaga dhali jireen oo ku dhig bixi jireen waxaan dhahdaa ma haysan dhaqaatiir tababaran oo fiican ma haysan adeeg caafimaad gurigooda ku dhig bixi jireen kasoo ku baabijta danto isku goy jirtay danto inta uu mushoon bay dhiman jirtay dhig bax. One of the challenges that the country is experiencing is that it is very difficult to place and retain medical doctors in some of the rural areas. So many of the times when the pregnant mothers come to the hospitals, there are no qualified people to attend to them, and that puts their life at risk. So that is why at THET, together with the Ministry of Health, we said that if we are having a challenge placing doctors in the rural areas, why don't we train nurses to be able to perform some of the functions that doctors are playing, so that at the end of the day, these nurses who have acquired additional skills in cesarean section, in resuscitation, but also anesthesia, can be able to, within those skills, be able to intervene to help our mothers who are out there in the villages. waxay training kiimika soo qaadanay wuxuu naga caawiyaa fara badan oo aan markii hore garanay kiin waqtigan xagaadkina waxaanu helay practical fara badan waxaan helay cases fara badan oo isugu jira case medical waxaan helay case operation loo sameeyo case decision maker oo go'aan laga qaadanayo case fara badan baan helay case tusaalahaan oo kale waqtiga inta waxaan la kulnay hooyooyin fara badan oo kula kulnay maxay dhakhtarka lexdiisa hooyooyin fara badan oo ilaa iyo waxaan oran karaa maxay ahaayeen ilaa iyo 20 case meelaha oo refer gareynay oo ZS bay noqdeen in fara badan oo ilaa iyo hooyooyinka bil walba waxa ku dhashay konton hooyo ku dhalaa halkani kontonka hooyo ku dhalaa waxa dhakhtarkani waxa 20 kamid waxa noqdaan complicated bay noqdaan bas aan joogay gurigeyga inanteeda yar kala uurkeeda yeeshay tabitana sidii baxraanada la xiriiray سعيد باياغي markii aan fooshay xanaanada tagay markii Saciid yaaga wuxuu sheegay in qaliin hay ambalaaska la igu qaaday warqadii Saciid ii qoray ambalaaska la igu qaaday barbaraan tagay xayaaga doctor Khaliil markii yaaga waxa uu ogaaday in qaliin hay sidoo qaliin buu igu sameeyay way qalay inta yar buu iga soo saaray sidii ma ku dhalay laakiin imka dhaqaatiir baa joogta la soo tababaray fiican anaga Saciid baan la joogaa daaima hadii gaar dhakhtar fiican weeyaan marka waxa magaaladeedan kuma jiraan wax dhig baxay wax xumaado toona. The issue is that the doctors are not there. So what do we do? Do we leave the mothers to die and wait for the doctors to come in 10 years' time? Or do we do something now to be able to save on the life which is at risk?